مدن مدحوينه دمان مدحدا كله iyo shacabweynaha reer Puntland waxaan marka hore madaxweyne adiga shacabka iyo madaxda kale idinkaga mahad celinaya sida quruxda badan oo aad igu soo dhaweyseen dhulkii guduga iyo beeyada waxaan idinkaga mahad celinaya sida quruxda badan oo aad igu soo dhaweyseen dhulkii saldhigga u ahaa horumarka iyo ilbaxnimada Soomaaliyeed waxaad ku mahadsantihiin mudane madaxweyne adiga shacabka sharafta leh reer Puntland inaad nagu soo dhaweyseen dhulkii xudunta u ahaa halgankii daraawiishta waxaad ku mahadsantihiin inaad nagu soo dhaweyseen dhulkii barwaaqada iyo horumarka oo nasiib u yeeshay inuu qayb ka ahaado ama uu ku yaallo meeshay iska gooyaan badweynta Hindiya iyo badda Cas waxaan ku faraxsanahay inaan maanta soo booqanno magaalo madaxda Puntland garowe oo ah hooyadii federaalka Soomaaliyeed soo dhaweyntiina qiimaha badan waxaan u fahmay soo dhaweyntiina qiimaha badan waxaan ka bartay oo aan ka fahmay maantay sababta ay reer Puntland ugu guuleysteen nabadda midnimada iyo dawladnimada halkan ka muuqata waxaa halkan ka muuqata maanta in dhammaan shacabweynaha reer Puntland dhalinyaro dumar siyaasiyiin salaadiin odayaal dhaqameed ganacsato iyo aqoonyahanba inay wada fahmeen iyadoo idinkugu horeeya madaxweynihiinnu in dawladnimada maanta ay u baahan tahay in gacmaha la isqabsado waxaa reer Puntland ka muuqata inay fahmeen in dawladnimada ay u baahan tahay in loo duceeyo oo aan la habaarin waxaa muuqata inaad 20 sano ku gaarteen inaad fahamteen in dawladnimadu ay u baahan tahay toosin oo aanay u baahnayn in la dumiyo waxaa ka muuqata halkan inaad fahamteen in dawladnimadu ay leedahay ama ay mudan tahay taageero aanay u baahnayn jallaafayn waxaad fahamteen inay dawladnimadu u baahan tahay daahfurnaan iyo isla xisaabtan halkan waxaa iiga muuqda jacayl dawladnimo waxaa iiga muuqda bisayl iyo dulqaad halkan waxaa iiga muuqda dadnimo iyo dawladnimo ku dayasho mudan waad ku mahadsantihiin sida sharafta iyo karaamada leh ood noo soo dhaweyseen maantay waxaa noo muuqataa aniga iyo wasiirada iyo wafdiga ila socdaa inay quluubteennu isku dhinac u jeedo waxaa noo muuqata in xamar iyo garowe ay wax badan isula jiraan laakiin inay quluubteennu isu dhowdahay sidaas daraaddeed waxaan rajaynayaa maalmaha soo socda inaan yeelan doonno wada xaajood aniga iyo idinka dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada waxaan idin sheegayaa inaan u imid halkan dadkii Soomaaliyeed oo aan ra'iisul wasaaraha u ahaa inta aan halkan joogana waqtigayga idinkaas kale waa mahadsantihiin